munaasabada tan xil wareejinta oo xilka kula kala wareegayeen golaha madaxtooyada ee wareegtada ee maamul goboleedka Khaatumo ayaa waxaa markaasi xilkii iyo mas'uuliyadii maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia si rasmi ah u wareejiyay madaxweynaha 6 biloodkii ugu horeysay ee maamulka Khaatumo Ahmed Cilmi Cismaan Ahmed Kraash oo ku wareejiyay madaxweyne Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheela munaasabada xil wareejintaasi ka dhacday baradaha weyn ee lagu soo asaasay maamul goboleedka Khaatumo ee loo yaqaan barada Khaatumo ayaa waxa goobjoog ahaa inta badan mas'uuliyiinta maamulka Khaatumo golaha xukuumadda golaha wasiirada iyo waliba arrimaha bulshada waxana ugu horeynba ujeedada laga lahaa kulankaasi ballaaran ee xil wareejinta ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda khayraadka dabiiciga ee maamulka Khaatumo Ibrahim Guure intaasi kadib ayaa waxaa hadalkii qaatay madaxweynihii soo hayay muddadii 6 bilood ee ugu horeysay maamulka Khaatumo jiray Ahmed Cilmi Cismaan Ahmed Kraash oo wax badan ku dheeraaday muddada uu xilka hayay waxyaabaha maamulkiisu qabtay iyo waliba caqabadaha markaasi ka hor yimid arrinkay waxa weeye Maxamed Yuusuf waa kiina la joogi jiray waa taqaaniin madaxweynaha kursigan baan ka kacaya marxasan ka fariisanaya wasbarba fadhiya taa ku bushaaraysta waxaan idin sheegayaa waa Ramadaan khudbadii aan idinku tala galay waxa akhriyi doona hadii aan la yiri awal weysaysanaa idin akhriyi doona baaqi yar baan halkan idinka sheegayaa kama dambaysta u darayna labada maamul aniguna anoo taa raacaya ayaan waxaan oo isku halaynta qaba awalna isku kalsoonaa kama dambaysa waxaan u darayaa labada maamul ee hareeraha xiga inay si degdeg ah ay uga baxaan dhulkan Khaatumo ay haystaan inay si degdeg ah uga baxaan baan baaqa ugu darayaa waa kama dambaysa intaasi dabadeed ayaa waxa cod baahiyihii loo weeciyay dhanka iyo madaxweynaha cusub ee markaasi xilka meertada ah ee 6 biloodkii ee maamulka Khaatumo la wareegayay Maxamed Yuusuf Jaamac oo hambaliyay walaalkiisa ugu horeeyay xilka madaxtooyada waxaana uu sheegay in markaasi uu sii jeexi doono wadadii uu jeexay madaxweynihii ka horeeyay isla mar ahaantaasina uu dhamaystiri doono howlaha qabyada ka ah maamulka Khaatumo madaxweynaha mid baan leeyahay madaxweynaha waxaan ku leeyahay maxay ahaaytay juhdigii aad gelisay tii hore 6 bilood hele anoo aaminsan inaad xadibkeena laba laabtay 3 laabtaba mahaliinay wax hoos ugu dhacay odaytinimadaada iyo xadibkeena leeyahay tusmadaada waa loo baahay maxay ahaaytay hadii aan duruuf rasmi oo laba caafimaad ayaan keenin xadibkeena leeyahay صاحبه كسر دو كرسي قال كعبنا وين وظف لين لاي تيجي وانا واقع وحين كوب الله مينا وحين كوب الله مينا وحشاق إنه يرانا وحين اسكو قيمينا أنا وحويه وحي لحدي بنوتسيدي إمخا إنه وهذين إمخا لحدي بنودي لحدي بنودي صار تبع وحين اسكو قيمينا ومحل قبطي محل يدي معها محل قبطي ساسا ينوبلنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته qaar ka tirsan abwaanada iyo suugaanyahanka deegaanada Sool Sanaagiyaan ayaa iyaga la fahantoodu ku soo gudbiyay kaalintoodii suugaaneed inay ku cabiraan munaasabadaasi xil wareejinta ahayd marwa badbaad iyo bili iyo nasiib iyo burda caafimaado dawlad baa loo qabay qarankii burburay isla baadi doontay inta loo boqorada iyo sharcigeeda badan oo yaan la iska bayrey Ahmed Ali Farax Universal TV degmada Taleex